أنا حتى ولي يكون مارك والله يا أنت جبتني واحد رنيت سو تذكي أنا هالمرة كنت أركض وأنا أملينا Okay. برجع ونكسن. أوكي ما أنا قفت هو Yeah. maxaa ku dooratay yani muxuu ragga kale kaga duwan yahay oo kale dan ku weydiiyo maxaa dhihi lahayd Wallaahi rag haddii la dhaho magaca unbaa la wada wadaagaa soo maha. So isaga haddaa dhahay maantay maasha Allah waxaa ku doortay kalsooni, karti, aqli, maxaa la dhahaa naxariis, waxyaalo badan. So inuu like dadka kale iiga dugan yahay uu iiga naxariisto. maano adiga qurux wanaag naxariis dulqaad madada dhaho xitaa waa soo kooba in waqti nagu dhamaada laga yaabaa inta ayada liista garaysay markii hore aan weydiiyo qofka maxaa ku dooratay waxbaan ka xasuustaa naxariisa ugeynada umaleeyaa adiga waxaad tirisana hal eryaa kasoo qaadan kara waxaad tiri qurux maxaa qurux ugu darweysa asaga markaas waa ku dare waa ku dare mise waxaa dhihi karnaa afnaan jecel sacrifice ma u samayn lahayd aad maxaa u samayn lahaa sacrifice mataqaana may يعني jecel qof aad u qabtid oo kale waxyaabo aad naftaada jecleen qofka dartiis ma u samayn lahayd may may qofka waa jecesha ma ho ونقدر دوانها ردوان ساق بودكاست أفرينا مانتا برنامجك ردوان ساق بودكاست waxay la fadhiya laba qof laba lamaano ma dhaha couples waxa la dadka qabo I don't know lamaano TikTok ay la jooga maano iyo qoftiisa afnaan ayaa ila jooga su'aalo badan oo weydiin doonaa dadka waxaan ka dhaxeeyay ma shukaansadaan ma isqabaan wax dheeraad ma jira su'aalo badan weydiinayna maano oo kale dadku waxay ku xasuusnaa hadda ku raxta barnaamijka ka soo muuqday waa saaxiibka Junior iyo Zam waajib horeysay Zam iyo Junior fadhiyeen meeshkiliga meesha fadhiday maanta adiga qoftaada wada fadhisiin waxaaba ka jeclaan laba daqaal adiga qoftaada la fadhidiin in Junior say fadhiyo laakiin may dhicin waqtiga saamixi waaye inay wada joogtiin ayaa farxad ah way soo dhaweynaya marka hore soo dhaw waa ku dhawahay ladies first alla ila soo kor martay dhimale okay soo dhaw adigana waa dhawahay walaalka waa maasoo Soomaaliya bogta markastaba ragga hormarina dumarkan way ku qanacsiin in rag la hormariyo ya sax waay so marka hore dad way idin yaqaanaan dad ma yaqaanaan soo ma sax asbaranaya maano ya waa soo dhaweynaya horta waa ku dhawahay magac maano lehen ma leedahay ya magac maano ahaan ma leedahay may maano dadkii ugu wacan magaca saxdan waxa waaye cabdiraxmaan afnaan adigana magaca saxda aniga magacayga saxda afnaan waaye magacaas leeyahay sharcigaaga waxa ku qoran sharcigayga xataa afnaan ay ugu qoran afnaan okay afnaan horta maxay ka dhaxeeyaa adii maano xiriir anaga dhaxeeyo xiriir waa shukaansiin macnaha waa isla sheekaysanaa waa shukaansiin waa shukaansidaa diidada waa sheekaysanaatin no waa sheekaysi shukaansi same waaye so badanaa aaladaada marka arko oo kale maano iyo afnaan inshareerka saana wadata adi ama maska ama wejigaa marka suu qarsan yahay marka maantana qaabkii TikTok le saana u qarsanaane mise wejigaa waa la arki doonaa maadaama hore loo arkin ma asxaabteeda special ugu dhigtid wejigaa si toosa loo arko mise haddii aadan jecleen oo maybe inshareerka dad sibay u xirtaan mugta qofaad diin ka tahay sheekhad emo qofna waxaa waa just kaabin uu saga qariyaa adiga inshareerka ku xiran horta muxuu yahay marka hore aniga inshareerkayga horta joos ahaan u xirtaa oo markaa baxaayo oo kaleeto sometimes waa xirtaa mararka qaarna waa ka tagaa okay so maanta waxaa rabaa inaa fiskayga afro dadka like intaan korbas yaqaanay so hadda in la wada bartaa rabaa koryood laga bartaa may koryoos like fiskayga dhamaystiran okay it's okay so because dibu ma aragtid may dibu ma arka caadi waayo ana xataa weligay kuma arkin wallahi inta joogtin way xirneed so dadkii aniga hal mar ku arki doona amaleena okay برجع ونكسن okay ما أنا قفتا waa yeah no approve grey ila adaha ismaqaadiyad erey dhaw iga soo baxay wallahi erey iga soo baxay wallahi marka quruxdeeda arkay afnaan waatan soo ma afnaan dadka comment lan waxay soo qorayeen
qof caan waa isqariso soo hadda wejigaa waa la arkaa umaleynaa dadkii aaminsanay kumalna somahan comment la laakiin nafta ii keeneen gabarta maxay isku qarisaa gabarta maxay saan u yeeshaa saw markii hore joos iga ahayd haddana like jooskayga ku furay soo barasho wanaagsan comment la maxaa sabab horta in wejigaaga qarisid oo kale bilowgiiba see ku imaad yani inaa wejigaaga qarisid oo saasna ku wadid ilaa hadda ilaa laga soo gaaro maanta okay like bilowgii hore markay ahayd tiktok iyo waxaas intii markaa ku biirayay ama galay tiktok iyo waxaas like jooskayga ma ahayn inaan ku biiro ama aan galo laakiin maxaa jirtay saaxiibkayga inuu maxaa la dhahaa wiil saaxiibkiisa wax ka duduwajida asaga iyo saaxiibadiisa junior sama kase so markaas camal oo kale aniga kaamirada gadaal istaagi jiray sida wax u duubayaan waxaas intii waa fiirfiirin jiray so markii dambe waa forjooway markaas maxaa ku dhiiraday inaan tiktok galo laakiin facekayga aan fast qariyo maxaa is dhahaa soo wada bandhigin because cabsi ay ugu jirtay yara laakiin haddeertaan wax cabsi aad dareemayo ma jirto anaa jeclaysta inaan furo okay so adi social media inaa soo gashay maba ahaynba yani qorshahaaga horeba may qorshahayga ma ahayn waxay aragtay saaxiibkeedu la ceelaya saas oreedu soo gashay okay so Zam iyo Junior kale markii adii duubi jirtay oo labadiin waxba idin ka dhaxeeyay waqtigaasba ka horba waxba naga dhexeeyay so ninkana raaci jirtay adii haa israac jirna afarteen oo waxa soo duubi jirnay labada laga duubi jiray laakiin aniga meesha wax ka duubay agtiisa iska taagnaan jiray waa fiirin jiray like dadka so dadku waxay u arki jireen Junior iyo Zam in ninkan kaligiis yahay ax labadaasna yani ay buusayaan oo kale ninkan single laakiin reality waxay ahayd asaxta qoftiisu wad inkastoo kaamirada ka dambeysay kaamirada ka dambeysay okay so markii dambe see kusoo gashay marka social media oo duubi ugu horey muuqaalkii ugu horey waa duubteen labadiin oo kale soo ku imaan wallaahi qorshihiisa ma ahayn asaga tiktok iyo waxaas inuu galo ama samaysto anaa asagaba muusi rabin tiktok iyo waxaas so wax badan waa waxa ku dhahay aa samaysano aa galno maxaa la dhahaa asaayaalno sa uu igu qaatay fikirka saas daraaddeeda maxaa la dhahaa ugu soo biirnay samaysane okay so dadka badanaa tiktok soo galo ama social media soo galo marmar waxaa la arkaa wiil iyo gabar oo wax wada duubo moogtaa uma sheegaan xiriir anaga dhexeeyo dadka ma dhahaan ama ma dhahaan yani waa isqabnaa nala socda camal ma dhahaan inkastoo la yaro u ogaada marka dambe dadka diisayaad u fiiriyaan oo kale yani waa la arkaa dad wax isla duubanaad tihiin so maano waxa caddeynaysaa maanta labadiin in xiriir idinka dhexeyso maaha oo isqabin macnaha waa caddeynaya saana caddeyntu dadku waa arkooyaane inaan shimbirtan quruxda badan wato okay wax raba labadiin saa isku barteen in aan fahno maanoo hay horta waxaa isku baranay meel xiriirkiina ka horaa sheegaya sidii ugu horeysa maalintii ugu horeysa is aragteen oo xiriirkiina soo bilowdayba horta aragtida koowaad aan arkayo waxaan ku arkay meel isbitaal ah meel isbitaal aan ku arkay ayada qof aa ka xanuunsanaa anigana qof aa waday meeshaan isku aragnay marka ayadana waxay rabtay turjumaad oo jaslaa ku luuqada markaas waagaas intay ku cusbeed marka waxay raadinaysaa qof u turjumo saas ogeed anoo banaanka joogay aragtay abukaal iga caawiya dhahday turjumada rabaa saas ogeed isku baranay markay banaanka usoo baxdayna nambaraa kala qoranay saas waay nambarka waxa u qoratay marka adiga ka helitaama markaas ba jiray mise waa ka hele okay adna afnaan maxaa ka xasuustaa interactionkiina hore iyo markii ugu horeydo adna maxaa ka xasuustaa wallaahi wax badanaa ka xasuustaa maasha allah horta waa qof wanaagsan because qof markaas iigu horeysay aan isgaranaynin aa uga baahnaa like wax luuqadii waxaas iga caawiyo so asadana sidoo kaleeto waxay dhahay hayabay waa kaa caawinaya maxaa u baahan tahay dhakhtarkii waxaasayti asagaa la hadlay oo maxaa la dhahaa wixii dhan ii dhameeyey saas daraaddeed waxay igu dhahaa baa lambarkaaga misiin kartaa camal anigana ceeba igu noqotay qof icaawiye inaa ku dhahaa lambarkeygii iyo waxaas maku siin kara waa taqaanaa gabdhaa waxay sameeyaan so waa iska siiye so waxaa jirta waqtigaas wuxuu iisoo qoray salaamu calaykum camal iisoo qore laakiin ma aga jawaabin week dhan message kasoo jawaabin week dhan markaas waxaan u qoray wiilka turjumaanka waay wiilka turjumaanka okay saas waa dhan numberkeeda waxa ugu save garaysanaa wiilka turjumaanka wow adig maxaa ugu cabaysay maxaa ula hadlaysay macnaha week dhan maxaa ugu dhegeysanaysaa no aniga jees ahaanteyda ma ahaan ma jecli dad markay ila soo hadlaan oo kaleeto dadka la hadla miihi qofka waa fiiriya haddaana garanaynin waa iska dhafaa ma la hadlay soo saas daraaddeed asagoo isa qor wuxuu dhahay wiilka turjumaada waaye markaasaa la hadlay oo yani qofkii abaal
kusoo galay inuu ha yahay ha qofka abaalka isoo gala waay soo ceeb ay igu noqotay inaan ku dhageysto next time waxaa jirtay mar aa meelkooda kulmeyne waxaa jirta gabar walaashiisa oo isnaqaano laakiin best friends ee ah so aniga ma ogeyna camal inay asaga walaalo yihiin isla dhasheen so gabadhaas maalin waxaa dhacday inaan gurigeeda aado oo ayada asoo booqdo so gabadha markaas wayba dhashabo ayada uur lahaa igu dambeysay waa u tegay cabaara la sheekaystay anoo cabaar la joogo asagoo safarka imaada xaafadda imaaday mana ana ogeynin like ismaan ogeyn ma isdhehinin waa isla dhasheen saas daraadeeda meesha ku arkay yacni wiilkan isbitaalka kusoo baratay ka hor laagta gabar asaga la dhaltaaba gooni isku taqaaniin haa waa Mana isku isnaqaanay ogid? gabadh ma isku ogeen labadooda Aha. because anigana asaga ma ola imaanin oo ma dhihin qofkaana isnaqaana maxaa la dhahaa asna ma ii sheeginin saas daraadeeda meesha iskuga aragnay waayaa ana xasir wiilka muxuu meesha kasoo doona maxaa qaldan macnaha markaas marka xiriirka ma bilowday mise just garasho oo wax idinka dhexeedo maya xiriir yaraan naga dhexeeyay just like waxyaalo like shukaansi bilowgiisa shukaansi bilaagiisa isgaadgaad iga so saas daraadeeda maxaa la dhahaa meeshaas ku aragnay waayaa ana xadha wiilka maxaa qaldan asaga xataa wuu yaa wuxuu dhahaa gabadhaas afnaan maahan camal so meesha markaa isku aragnay oo kale taa cabaara maxaa la dhahaa udhaasaatahay ma fiican tahay haa bis uu iska sii gudbay cabaar markuu soo adiga soo dharbatishay waxaas kale u yimaaday dan anagoo fadhiga wada fafadhino asaga iyo walaashiisa iyo waxa dhan waa isla hadalno waa isla sheekaysanaa waxaa ku dhahay waay maantay xaafadan maxaa kaala dhexay camal oo ku dheh waa walaashii iyo waxaasoo ku dhehe so markaas maana garanayni saasoo ku wada kulanay markii labaad okay xiriirka suu ku bilowday marka garashadii baan fahanay isbitaal isku barateen soo maa adiga goortay qoftan inaad boxka aa gelisid oo sii shukaamisid aa bilowday macno horta wada xaadirka koowaad markii staarka la wada joogay gabartan ka helaani waa kabacdi waa sheekeysanay asxaabaan noqonay qof markaa asxaab noqdaan hadda teeda kale streak ma aqaan tiktok miya waxaa isku sii diri jirnay aday maalin ka dambeyso asxaab nabada nagu faa'iidaatay saas awgeed marka saasaa jecelka isku sheeganay markii waa kaa helo ku dhahay adiga waxaas aniga waxaa u maleynayo waa taqaanaa dhalinyarta waxay dhahan gabadha waa kaa helay waxaas aniga big deal ma u arkininba waxaa dhahay waxaas ciyaalnimada ay la soo aadin camal igala beer saas daraadeeda markii dambe like waxaa sii noqonay dad oo adiga ayr isku fahmo isla sii jaan qaado okay oo markaas haddana sumayso qaar haddana suqaarkeyga waaye agasdil abdashaame okay horta yani ka helitaan la sheegaya qofku ku bilowdaa mugta marka yani hal mar dadka jecel iskuma qaadaan yaa meel la isku arkaya qof aad damac yar galaayo qofka ka helayo isku dayayo qofka inuu haddana sii bandhigto intaas been marmarna way kuu shaqeedaa ninka rag waxaa laga yaaba halka qof xiriirka la sameeyey ka badan boqolaal inuu ka helay oo ka heli waayana dhici karta mugta gabadh nafteeda waxaa laga yaaba inay qof ka hesho oo iska ignore gareeyo kasii socdaa laga yaaba marka muhiimadu wuu ku bilowday laakiin markii dambe adna boxaa gashay saa ujeeda ya box la ii dhigaa gala weliba hadda xiriirkiina meeqa camal marooyaa maasha allah wax badanaa how long has socotiin adiga 22 oo lastigeeda isbarana December meelahaas hadda wax badan ay wada soconaa waa 2 sano iyo hahaawa ha okay xiriirkiina soo hadii Soomaalida kale yani dadka TikTok ugu xiran adiga TikTok dib ka furatay adigana way ogyihiinba family of course way ogaanayaan u maleynaya family say u arkaan in adoo gabar waliba rag waa iska caadi moogtay iska qofkeena way la socon karaan Soomaalida dhaqan ahaan rag ay ma lahayn ay dhahaan inkastoo in la shukaansi ceeb ahayn laakiin marmar in hadda social media oo kale gabar lala imaado oo kale oo fans inaa yeeritid waa laga yaabaa dad in taageersan oo idin dhiirigeliyo idinku daydo oo ilaahay isku hay calfo iyo waxaas idin soo qoro waa la heli karaa laakiin aabaha Soomaalida waxaa laga yaabaa gabadhiisa inuu yar jeclaysan in qof TikTok la imaado social media la imaado asoo weli xataa la weydiisanin ama laga gursanin familka adi say u arkaan inkastoo wejigaaga qarisidoo maanta iskeentay say u arkaan xiriirkiina TikTok isla duugtiin okay familkeyga haddii la dhaho before aanay wejigeyga bulshada maxaa la dhahaa aysa aqooninba oo maaska iyo waxaas kusoo geli jiray familkeyga way ogaayeen inaad TikTok iyo waxaas isticmaalo oo maaska iyo waxaas aqaato oo ku isticmaalo so maantana tan hadday arkaan isdhahay ama waxyaale iyo waxaasaa lagu dhahaa okay so just yani markay arkeen already soo duubayseen oo kale waxna kaa weydiiyeen because waa liigu ogyahay familkeyga way igu ogyihiin inaa xiriir idinka dhexeeyo
okay adigana ma lagu dhaha marmar familkaaga gabadhan isku sawiri ilaan qof kasta qofkiisa muhiim laa mugta yeah familkaaga adiga in hadda gabadha barteena laga yaabaa oo ay respect iyo wanaag u hayaan laakiin familka mar kastaba adaa muhiim u ah mugta ya ma laga yaabaa in lagu dhahay qoftan maxaa suuqa isaga xiree oo meelaa uga keenaaday bari qof kale ina calfitaa laga yaabaa maya horta familygayga ayaday ogyihiin wayna la socdaan ilan social media wax la qarinaya ma jirto mugta you know wayna la socdaan inaan gabartaan la socdo inaan ayada geliida ku goobanahay already ma qari kari mid kalena yani comment iyo dhib uma arkaan in dhib uma arkaan way ku faraxsan yihiin aaminsana family reer magaala markaa kasoo wada jeedina maraa labadiina dad waxa garada dad waxaa jiraan loo ogoleen dad badan waxaa jiraan gabdho badan iyo wiil badan waxaa jiraan inay social media kusoo biiraan oo magac yeeshaan jecelaa jiraan laakiin haddii xitaa whatsapp wax soo saarta yeah been lagu qabsadaa jiro oo maxaasaan u yeelaysaa sharaf malin you know marmar waxaa arkaysaa video iska caadi ma haddaad duugtid oo meel soo dhigtid in waalidkaa kula dhaqmaan oo kale qof telegram lasoo dhigo lasoo qarxiya levelkaasay u gaarsiinaya macna social media wax kale ka aaminsan yihiin may dadkaas waana run oo qaladaa jiro social media naftiisa iskugu dhex jira dad xumaan ku joogaan jiraan dad wanaag ku joogaan laakiin qofba sida uu isticmaalo ku xirantahay haddaa dhanka wanaagga u isticmaashid inta wanaagsan ee dhanka wanaagga baranaya haddaa dhanka xumaanta u isticmaashidna inta xumaanta baranaya waalid oo ilmihiisa xumaan iyo waxaas la rabana ma jirto saamaha so bulshada ahaan haddii la dhahana qofka joos uu leeyahay maxaa la dhahaa qof weyna ismaamuli kara hadduu noqdo wala waalid aan laga maarmin oo mar walba ilmihiisa u yahay haddana waxaa dhihi lahaa qofkii oo jecel inuu like waxyaala aaladaha iyo waxaas isticmaalo dhanka wanaagsan leh oo ogala taliyo ee u sheeg ilmahaagana like close friend la noqo because hadda waalidka ilmahooda close friend la noqdaan ma dhacaysa xataa cunug inuu wax kaa qariyo wixii maanta kusoo kordho kale inuu kuu sheegaa dhacaysa yacni wuu ku dhiirinaanayaa in wax kula wadaago oo kale taas marka hore hadduu bakdin kaa qabo oo qabkaaga jiro oo kale waxaa laga yaaba waxyaaba noloshiisa xataa inuu kaa qariyo because ma hubo reactionkaaga iyo waxaa dhihi leedo ka cabsanaya sooma taas been okay aadan u gartay of course laba qof oo is-shukaansado oo yani xiriir ka dhexeeyo ama sheeko wadaag ah dadka dhan xiriir way sameeyaan ileen qofkas guuru rabaa mogta guurkiina waxaa ka horeeya in isfahmo oo la wada sheekaysto waa iska caadi laakiin markii dad public yani xiriir kaga dhexeeyo oo kale waxaa laga yaabaa qofkan in social media wax soo dhigo gabdho kale ay haddaad waxaad tiri magaca isticmaasho muxuu ah suqaarkeyga waxaa laga yaabaa gabar kale inay dhahdo qofkan yani qofkan inay ka hesho oo kale way ka heli kartaa laakiin ma lahan karto so yani sidee ula dhiilgaraysaa in qof maybe social media wax soo dhigo oo kale aa la sheekeysatid oo kale soo maseer ma imaan karo sidaas ugu hortagtaa in gabdho soo salaamaan oo kale ama la hadlo oo kale maseer ma dareentaa sidee ula dhiilgaraysaa hadday dhacdo okay horta midaa jirto qofkan maxaa la dhahaa marka isbaranayna social media iyo waxaas iskumaana baran samaha nolosheena sida caadiga isku barane saas daraaddeed anagoo wada socno oo maxaa la dhahaa social media soo wada galnay marka iguma adkaanayso way jiraan gabdho badan iyo waxaas la soo hadlo oo maxaa la dhahaa isaga soo damco laakiin waxaasita dhan ma la hadlay kalsooniya ku qabaa ani marmar markii lamaana imaadaan oo kale waxaan sameeyaa maadaama barnaamij kale aan sameey jiro oo tijaab jecelkaaga loo dadka isjecel isku ogaadaan oo kale waxaa dhahaa kalsooni intay iskula qabtiin oo kale hadda teleefonadii kala bedesha daa idin dhaha oo kale maxaa telefoonka kala bedeshanaa ayada telefonkii haysay telefonka hadda waka intuu helaa laakiin weekend aada isticmaalaysa telefoonadina wax weyn maaha xataa dad kala bedelano so already waa kala qaadatiinba waa kala qaadana hadday dhahdo maanta telefoonkaaga u baahanaysi waa siina of course hadday iga sheekiso meesha kalsooni yeelo waxa weydiinaa ilan horta ma jiraa laba qof oo is aaminay oo kale oo xiriir ka dhexeeyey mid ka mid a inuu qofka kale khiyaani karo wax jira dhaca ma yihiin mise ma aha adaa ku weydiinaya afnaan way dhacdaa qof daacad u ahoo keligiisa isku dhiibay oo like real u ahaa ma dhacdaa inuu gadaalka khiyaano oo wax kala soo baxaan way dhacdaa sax yes way dhacdaa bilaadan waay qofka bilaadanka wax walbaa laga fishaa so yani shaki wuu imaan karaa sometimes ilan wixii adduunka dhacda mo dad ilmo iska dhalay oo waqti dheer isqabaa marka dambe isfuraan sooma so I don't think is unreal inaad dhahdid marna weliya shaki ma dareemayo oo kale horta shaki waa jiraa labada xiriir hadduu qof mid ka dhexeeyo
oo dida kalena social media ay ku jiraan horta shaki way maana qasab waay laakiin waa inaa mar walba qofkaaga ku kalsoontaa anigana waxaan aaminsanahay maanta shimbirta inay ugu kalsoontaa okay mamidii ani bas ma adaxtaa oo ku jirta afnaan haddaa ku dhaho ninkan maxaa ku dooratay yani muxuu ragga kale kaga duwan yahay oo kale haddaan ku weydiiyo maxaa dhihi lahayd walaahi rag haddii la dhaho magaca unbaa la wada wadaagaa soo maha so isaga haddaa dhahay maantay maasha allah waxaa ku doortay kalsooni karti aqli maxaa la dhahaa naxariis waxyaalo badan so inuu like dadka kale iiga dugan yahay uu iiga naxariisto inuu iiga dhow yahay ena like ummadda kale hadda maxaa la dhahaa kiimanihin anaga waxba inagama dhexeeyaan xataa like isku dareen ma noqon karno so isaga maanta waxaa laga yaabaa wax oo maxaa la igu soo dhacay inaa u sheegto oo maxaa la dhahaa sidaa jeclaan lahaa in la ii dareemo ama la ii dhegeysto oo ii sameeyo so waxaa tiri waa in naxariista way fahmaa soo ma waa in naxariista marka leedahay oo kale waxyaabo niidaad kusoo dhacay ma jiraan oo horey kugu sameeyey oo maybe dadka ma oga laakiin dadka la wadaaginahay waxyaalo hore igu sameeyaa waxyaalo badan maxaa ka mid camal oo kale kasoo qaad hadda waxaa laga yaabaa xoogaa inaa madaxay xanuunayo oo kaleeto markaas waxaa laga yaabaa inaan si fiican oola hadlin oo kale hadduu ila soo hadlaa hadalka wax soo gaagaabiyo maxaa kaa qaldan markii liigu dhaho inaa dhaa madaxay xanuunaya soo war badan uma baahni mar kale kula soo hadli doona daawey waxaas isoo qaadaa wii imaana camal guriga hoosaa taagana kaala soo deg ama waa liigu imaana so markaas kaleeto maxaa dareemay wax aada like markaas oo aadan ku tashanaynin ama laguu sheegin in laguu sameeyo okay marka naxariis markaa ka hadashid oo kale hadalkaasaa soo xasuusta ama yani ficilkaas kuu sameeyaa soo xasuusta ficiladaas iyo kuwo kale badanbo maano adiga maxaa ku xasuusta afnaan ama yani maxaa ku dooratay oo gabdhaha kale aad is leedahay maybe qofteeda ani qoftanay noqon kartaa oo kale ilan qof kastaba uu riyoodaa moogtahay qof baa nidiis ku jiro xiriir ka hor iyo intaa wax sameynin ka hor qof kasta dream gaar uu leeyahay ama gabar kasta dream ninay leedahay yaa like qofkeeda suu u noqon lahaa waxyaalahaas horta waxaa ku doortay wax badan aan maanta lasoo koobi karin oo maanta aan afkii aan kasoo qabi karin qurux wanaag naxariis dulqaad maanta haddaa dhaho xitaa waa soo kooba in waqti nugu dhamaadaa laga yaabaa intii wanaag ee leedahay intay naxariis badan tahay naxariis badan tahay doorasho aa ku doortay maanta u qanacsana okay inta ayada liista garaysay markii hore aan weydiiyey qofka maxaa ku dooratay waxbaan ka xasuustaa naxariisa ogeynada umaleeyaa adiga waxaad tirisana hal eryaa kasoo qaadan kara waxaad tiri qurux maxaa qurux ugu darweysa asaga markaa sheegaysa waa ku dare waa ku dare mise waxaa dhihi karnaa ragga qurux looguma taligelin yani qofka kartidiisa laga hadlaa marka wax la sheego I think kartida inaa sheegtaa qurux waa lagu talagalay maxaa nin farxun yaa qaadanaya qof hadda koor wuxuu yiri dumarka quruxda loogu talagalay ragga waxaa la yiri markii la feeriyo uun in yar inuu daanyarka ka qurxoonaada loogu talagalaa qof walban cidna ma qaadan karayso markaas fiirsid oo kale oo kan bani aadan waaya in la dhihi karo unbaa loo baayaala waxaas dadka aaminsan le waay waxaas dadka aaminsan waay laakiin adiga uu ku qurxooya yaa wuu qurxan yahay of course waxaa la yiri the beauty is in the eye of the beholder quruxda waa isha eegaysa moogtahay hadda waxaa laga yaabaa in laba gabdhood oo kale saaxiibo yihiin gabaraan nin u dhimanaysano gabadha kale waxaa laga yaaba kan maxay ku aragtay inay leedahay yaa way dhacdaa ama shoobin oo soo wada samaysanaysa suuqa wada aadaysi dharkan ay tan soo qaadanaysaa tan waxaa laga yaabaa dharkan inay soo qaadato because tanna waxanaa la qurxoon tan waxanaa la qurxoon yaa been waa waxyaabaa la iskala tashin waxaa waaye badanaa khaladaadka la sameeyo waa ragga iyo dumarkaba in gabar qofka ay shukaasto oo kale gabar kala tusto oo kale ka waran qofkan of course waxaa laga yaabaa ayada ra'yigeeda kale doonto waxay ku dhihi qofka ma shirno because ayada waxaa laga yaabaa in ha ay inay qofkaasi qurux la ahayn markaas waxaa fiican in qofka sheeka wadaaga tihiin ama qofka adi mustaqbal la wadaagayso oo kale muhiimad waxaa waaye in adigu ku qurxoonaado muhiimad waxaa waaye in adigu ku naxariis badnaado muhiimad waxaa waaye waa meelaha la rabo inaad selfish ku noqotid dantaada inaad fiirsatid markaa mar hadday adiga camal oo kaleeto mustaqbal iyo waxaas hadday tahay maba qurux badnabo inaad qof kale tashid wax walba oo dantaada xataa dhihi karaa
qof bilaadan inaa kala tashtid waxaa ma laga yaabaa waxyaabaha qaar waa loo baahan yahay tashi markay timaado oo kale waa loo baahan yahay laakiin qof xataa haddaa wax kala tashanaysid waxaa loo baahan yahay adoo waxaas mar hore like maxaa la dhahaa kasoo tashtay ee waxaa ka dhiileeday waxa dhan meel soo dhigtay haddaa qof kala tashanaysid inaa asna markaas u sheegtid afnaan jecel sacrifice ma u samayn lahayd adiga maxaa u samayn lahaa sacrifice mataqaana may yacni jecel qof aa u qabtid oo kale waxyaaba adi naftaada jecleen qofkaa dartiis ma u samayn lahayd may may dee qofka waa jecesha maho waa jeclahay been maahan laakiin camal oo kale waxyaala aadan jeclayn ama anugu aana habi ku dareemayna qof daraadiisa ma sameeyaan si kastoo u jecesha yes sababtuna maybe waxaa laga yaabaa waxyaala iska caadiya oo kaleeto laakiin waxyaala nafteyda like aysa uncomfortable ku dareemaysa uma sameeyaan just si degan laakiin waa ugu sheegi lahaa waxaa dhihi lahaa waxaas iyo waxaas baan ku diidayaa ama maxaa la dhahaa aana ku jeclayn soo saas daraadeed adoo ay ka xumaanaynin ka dhac camal hadduu ku adkayso iska dhaafi waayana wallaahi waqti bay qaadanaysaa inaa ogolaado because side ba For madaxa laga example- for example qofkan waa isjeceshihiin soo maa waa isguursateen waa isqabtiin waa faraxsan tahay laakiin sinaa kala guursaday for example maasha allah jaceylkaas u qabtid iyo historyga isla soo barteen oo kale of course gabar ninkeeda ku farxaysa mala inuu naa kala guursado okay so naftaada ma jeclo naftaada ma caburin laheed oo maseerkaas iyo kale dhulka ma geyn laheed adoo ugu sabraya jaceylkaas u qabtid oo kale ma uu ogolaan lahayd inuu xaas kala samaysto oo nolol kala samaysto may nolosha iga waayo waxaas kale waxaa u raadinaya waxay so waxaa ka doorbidi lahayd inaad isla joogin macna may waan isla joogaynaa laakiin before aniga asaga aana isguursaninbo baa waxaas o dhan kala hadlayaa maxaa leedahay midda kale kalsooni baaba kasii diyaarsanayaaba uusan waxnaba iga qarininba wixii maanta usoo arka dhan uu may iga kaama sheego. maqarin weyib naagta waa la aroosay waa lagu sheega qoftana aroosi rabaa saaxiibe adii cilad ma lihid okay su-aasha aa weydiinaysid waxaa laga yaaba inay noqoto maybe hadda xataa waa tiri muxuu igi waaye oo kale Mhm. wuxuu ku yidhi ani 30 caruur inaa dhalaan rabo keliya 30 ma dhali kartid for example si 30 caruur u dhalan waxa u baahanaa 3 xaas oo kale mid kastaba 10 iska dhiba maxaa dhehe so tirada caruurta 30 caruura hadda 30 caruura iyo maxaa la dhahaa 2 caruura ka haysta waxba isma dheera caruur baa taas caruur opinion soo kaaga maha. waa laakiin qofku wuxuu ku yidhi ani ilmo badan dhalaan rabaa for example saasa u sameynaya xaaska ilaa nin ku dhahay male adi ma qurxoonid inaa kale saasa u gursanaya ama adaa i qancin weysa inaa kale ku dhahay male moogtahay Sax, laakiin excuse uga cadoo badanaa la isticmaali karo waxaa waa ilmo badanaa u baahan ilmo badan aa rabaa mana dhali kartid of course ma dhihi kartid 30 anaa ku dhalaa ma dhihi kartid oo is very inhumane yani wax macquul ma aha yeah normal ma aha so ma ka yeeli lahayd may kama yeeleen baa weydiin lahaa inuu ku qanacsan yahay in kaleeto si walba ugu qanacsan yahan waxaas kamaba akhristeenba so ma yeelis ad inuu may hay mano waxa soo wado aqaanaa ayada iga badan iyo ayada afar u dhigantay iyo sheekadaas soo wadaa Urid waxaa soo wada ogtaa Soomaali. waa aqaanaa dee ragga markay stagekan joogaan oo kale waa Dad ay ku lahayaa ma hadlaan. isleeda markas waxaa focus garaynaysaa qofka markaa haysatid you don't care about tomorrow Ana already yaa kaa hordhicine ra'yigaa ka hadal okay oo ra'yigayga oo inuu afar ninka inuu guursada Ha. mise inuu hal xaas leh horta ani dooqayga waa hal xaas Aha, halkaas inaa ku goboobo leh aha. aaminsana mid kale never aabaa ma xasu leeyahay su'aal caadi ah. taas fikrad waa fashil cad aabaa inta xasu leeyahay sheegtay maxaa ayada ka galay maya aabahayga waa jooskiisa okay ayadaa ka aniga waa bilaabaya jooskiisa afnaan aabaa ma xasu leeyahay run sheegaya abahayga ah abahayga hooyaday be realistic I mean run sheeg runa sheega mahano abahayga hooyada iyo xasas kaleto uu leeyahay hadda mee qoraysta bal joyskiisa waaye waxba igama gelin aniga. aniga wax kaaba just number lay ku weydiin mee qoraysta ani aabay oo kale afar xasu leeyahay for example almost 9 times 10 times uu guursada wax soo iska caadi it's normal yani wax hadda su'aal jawaab lagaga cararo ma baham abahay xafar xaasuu qabaa okay adiga aabaa mee qorayay aniga waa splash na sheeg aniga walaahi wuxuu qabaa labo okay aha
so wax iska caadi ah guri uu dhixi abi haduu jooskiisa anigana waa jooskii muta okay laguma dhina aba samee laakiin dadka qaar ay aaminsan wiilasha qaar waxay ku dhahayaan aabbahay intaas waxaas uu leeyahay intaas ilmuu dhalay so anigana waa inaa intaas waxaas ku guursadaa camal oo kale aabbahay afrad uu leeyahay qofka aabiis ma noqdo fahamtay qasab ma inaan noqoto dad way noqdaan qof waxaa jira exactly copy aabiis aa jiro daba wajigiisu u ekaado maartay so aabbaha wajigiisu ma ekaan kartid dhaqan ahaan oo ekaan karta sometimes waa iska caadi wax caadi ilaahigii qadaray in wajigiina isku ekaado uu awooda in dabeecad ahaan iska keento moogtaa iska normal su'aal kale oo kasta maybe in dib u aragtina laga yaabaa laakiin waa idin weydiinaya tiktok inaa fiiriya amaleena maano tiktok isaa fiiriyey lamaana jilaysiin oo kale nin iyo naag isqabin oo kale inay gacanta isqabaan oo saa laisku wareejiyo oo kale kasta I know taasi maxaa la dhahaa bulshada markii la dhaho dadka tiktok isticmaala kala bar way sameeyaan saasay taa ma u sameynayno dadkaaba way sameeyeen anagu ma sameyno laakiin taas like xamaasada videoga duweynana qaadis astaraadida sameyna inta kale dadka bulshada maxaa la dhahaa bulshada xataa maahan dhalinyarta like anaga agekeena camal oo xiriirkii waxaas ka dhexeeya maxaa dhihi lahaa wiilow gabadhaada u naxariiso maxaa la dhahaa jacayl iyo qadarintoos iyo ixtiraam iyana way ku tusi doontaa lacagna la siiyo gabdho mugtaageersada gabdha lacag la siiyo arad weydiiso ashaawi ku taageersanta in gabdha lacag la siiyo of course ayagan hataa lacag dad weysiin karaan sooma qofka ay shukaansadaan gabdha isfahankooday ku xirantaa kola isfahamkood maxaa ka wadaa like labada qof sida iyagu maxaa la dhahaa isku fahansan yihiin oo kaleeto dadka waxaa laga yaabaa marka wiilka lacagta bixinaya isfahamku ma xiran miya markii gabadha lacagta ninka siinaysa way ku xiran tahay laakiin waxaa dhacdo maxaa la dhahaa camal oo kale wiilka inuu yaro ka qajilo u dhaho ma gabar baa lacag weydiin karaa wax kale ii fahmi kartaa saani laakiin labada qof hadday isfahansan yihiin oo saaxiibtinimo ka dhexayso waxaasayt maxaa la dhahaa meesha ma imaanayaan iska caadi waa iska caadi wax dhiba ma lahan because waa saaxiibkaa oo kale laakiin ani badanaa waxaa dhaa mataqaanaa qofka sheekaysin iska badaaba qof kaloo miskiin oo waxba idinka dhexaynin maanta haddii uu gaajaysan yahay ama wuxuu kaaga baahdaa siin kartaa soo ma taas caawinaadaas diinta inaabana fartaba soo maha okay laakiin realistically aniga gabadha qofka shukaansada oo kale inay tiraahdo kale waa lagu leeyahay inaa wax siisid oo kale kastoo ma lagu lahaa qasab aniga waxa u arkaa kastoo in aan yar macquul ayan macnaha yaa sababta ku sheegaya kaba soo qaad maanta gabadha shukaansada gabar hal sanaa sheekeysanaynay halkaasina waxbaa siinaya marka dambe waxaa ogaaday in qofkii saxda ahaa noqon waayo qofkii gabadhii haddana sida caadigeed qof labadaa isku daya sooma gabar labada haddana shukaansada ilan qof kastaba maalintu guursanaya waxaa laga yaaba 10 gabdhood inuu soo shukaansaday hadduu rag yahay haddii gabar tahayna 10 nin inay soo shukaansataa laga yaaba oo qofkii 11aad is calmadaan ama is calafsadaan soo maa so ana qofkii labaad haddana shukaansaday 2 sana la socday haddana waxbaan siinayay haddana mar saddexaad isku day ani maxaan faa'iido like at the end of 6 years oo kale 6 years qarsha iga soo baxay inteen jooga ani macna like 6 years qarasha xisaabinaysaa markaas realistically I don't think in xaqku ma leh laakiin haddii of course qof isku wanaagsan atiin saa sheegaba qof waxba kaala dhexeynin oo just asxaab leetiin adoo wiil kale asxaabtiin maanta haddii xaalka ku xun yahay oo garabkaaga bahaado inaa caawisid waa soo qoftana maadaama isku fiican tihiin oo kale oona xiriir wadaag tihiin oo mustaqbalna aad ka fikiraysiin oo kale yani maanta haddii ay garab u baahato ama inaad caawisid oo kale waa caadi laakiin inay ayada ku xabad qaracdo ay tiraahdo oo kale de waa inay caawiso haddaa wax isiinaysa that's not good taasa diidanaya mooyaane qof isku wanaagsan tihiin oo maanta garabkaaga baahday inaad garabkiis noqon weyso weliba adoo awoodid taasna ragnimo maaha so waa loo baahan yahay qofka inaad caawisid laakiin gabdhaha yaysan garanted ay u qaadan ama wax laga rabo qofka inuu caawiyo u arkin because xaq ugama lahaan karto haddii asaga ayada xaq ku lahayn hadda maanta haddii naagnimo ugu baahdo xaq ma ugu leeyahay ayagoo isqabin qofta biilkeeda iyo wax kastoo ay xaq u yeelanayso waxa waye maalinta aad ismaharsateen maalinta ninka ragga gabadha xaq ku yeesho ayadana xaq ku yeelan kartaa
yaa taas been maahan in qofka like aaminsan oo isdhahayo wiilkan waa la sheekaysataayo wax haduusa ku siinaynin maahan like Ugo. ha ugoy waxaas wax fiican maahan aad u mahadsantihiin anything aan ku dari lahaydeen oo aan idin weydiin maybe like facekayga ugu dambeyn waa furay ugu dambeyn maxaa la dhahaa bulshada way arki doonaan isbaran doonaa hadda kadib Hadda kadib- tiktok wejiga Face- furnaan doona malena haa wejigayga furnaan doonaa saasoo ka isticmaali doonaa okay taageerayaashiina maxaa leedihi taageerayaasheena anaa waxaa dhahaya taageerayaasheena quruxda badan waa idin jecelnahay qalbigan waa idinka jecelnahay so waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad noo taageeraysiin intaa iyo inka badanna waa jeclaan lahayn inaa maxaa la dhahaa taageero bulshada kusii lahaano dhima leh afnaan thank you very much mano aad aa mahadsantahay thank you aad aa mahadsantihiin bye bye waxaan ku dari lahay haa gabdhaha like maxaa la dhahaa wiilkan gabadhu kasoo horbaxdo ninkii maanule bisaa dhahaan salaan xanta ayaa laga qaadin ya ninkii ninkii ay afnaan waa la dhaho so salaan xataa laga qaadin wuu gadan yahay bas bye bye